badankooda khayrka ilaahay subxaanahu wa tacaala markay barwaaqada ku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala kuma shukriyaan waxaana kugu daliila nabigu wuxuu ka sheekeeyey qisadii reer banu israa'iil wuxuu sheegay 3 nin baa jiray sida nabigu calayhi salaatu wasalaam nin wuxuu ahaa nin aqrac ah ninna wuxuu ahaa nin abras ah ninna wuxuu ahaa nin acmaa nool nin aqrac buu ahaayo wuxuu ahaa nin aan timo u soo bixin oo madaxa diiran buu ahaa dadkuna waa ku ceebayn jiray waxay oran jireen hebel waa madax diiriya timo ma soo bixin way ku ceebayn jireen marka ceeb ahayd waxa laga yaabaa hadda bilaabtan iska caadi tahay laakiin waqtigaas waxay ahayd ceeb ahayd ninna waxaa nin baras qabo oo jirkiisu cadcadaad baa ku dhacay adulkaas jirkiisu wada cad yahay oo geyl cad iyo geyl madow jirkiisu yahay ninna waxaa nin indhool oo indhalaan ah buu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala saddexdaas nin markii hore ay dhibaatada ku sugnaayeen waxay hayeen kuwo samraya khayrkiisa dhibaata ku jira markaa moogta ilaahay ku samreeyay markaas laakiin markii dambe waxaa la imtixaan waxaa lagu dayay in khayr intii la siiyay bal tijaabiyo waxaa loo sameeyay ninkii malag baa u yimid wuxuu iskaga soo dhigay qofku iskaga soo dhigay markaas wuxuu yiri maxaa ugu jeceshahay adduunka wuxuu ku yiri ninkii aqraca ah markaas wuxuu yiri timo wanaagsan in soo baxano dadkuna magaranaysa ay u amaanaan markaas wuxuu madaxiisu masaxay timaha ka soo baxay markaas timo wanaagsan oo qurux badan wuxuu yiri maxaa maal ugu jeceshahay wuxuu yiri waxa ugu jeclay lo 10 neef oo lagu keenay dhalaya Allah ku barakeeyo qofkaas ninkii wuxuu yiri ma garanaysaayay baraska qabay sidoo kale wuxuu yiri maxaa ugu jeceshahay kaasuu yiri waa xanuunsanaya xanuunkaas ilaahay iga qaada jeclaan gacantuu mariyay dabeetana ninkii wuxuu noqday caadi caafimaad wuxuu yiri adduunku maxaa ugu jeceshahay maal markaasuu yiri geem baa ugu jecel هذا ما كان دليا مع الوقت wuxuu tagay ninkii noolka ahaa wuxuu ku yiri maxaa ku dhacayo jeceshahay markaasuu ilaahay inuu soo cesho ma jeclaan lahaa gacantuu ka masaxayo indhihiisii caayda u soo baxay ninkii noolka wuxuu ku yiri maxaa maal ku jeceshahay wuxuu yiri ari ma ku jeclahay ganam arina iyo shuma jeclahay ninkii ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu 10 neef loo keenay 10 neef dhalaya 10 neef nimankii way iska joogeen xoolihii way tarmeen waxa laga soo wareegay intaasoo sano baa laga soo wareegay maalinkii hore waxay ku sugnaayeen dhibaato laakiin maalinkii dambe malagii ku soo laabanayo waxay ku sugan yihiin barwaaqo mid kasta xoolihii intay bateen oo intay xad dhaafeen baa waxa uu yimid ninkaas malagii laftigiisii oo soo basaaseeyey oo iska dhigay qof musaafir ah oo garanaysaay xaaladu ku adagtay iska dhigay baa u yimid wuxuu ka soo diray kii aqrac ahaa wuxuu ku yiri niyow safar baan ahay xaaladu way u adag tahay hal neef oo loo ahaa wadada ku sii maro isi wuxuu ku yiri niyow arrimo waa badan xagga xaas baa jooga xagga ciyaar baa jooga xagga kan baa jooga xagga diin baa laga leeyahay xagga waxuu kala diin maanta gama baxdo maanta igama baxdo niyo sidoo kale waxa uu agtay nin arki jiray oo madax dirnaan jiray sidoo waa moodaysaa oo faqir ahaan jiray buu yiri baa uu agtay baa ku malanaya buu yiri markaas waa moodaysaa anigu xoolaha kan kabir baan soo dhaxal oo uu baa ahaan jiray oo uu gisaal ahaan jiray xoolaha kan waa xoolaha dhaxal ku leeyahay iga leeyahay markaas uu ku yiri hadaa been sheegay Ilaahay subhanahu wa ta'ala saahida ku cishay iska tii ninkii garanaysaa abraska ahaa wuxuu ku yiri sidoo kale niyo nin musaafir ah wadada way u xuntahay hal tulida ama hal qaalin ama hal roti aan wadada ku sii maro xoolaha waxa xaroonay inta kale leeyihiin sidoo kale wuxuu yiri waa badan yahay waa culusnaay ageel waxa ma baxaan maanta wax uu akhriyo aduu adduunyo waa garanaysaa qof kasta adduunyo maanta uu dhammaan sheegshay waxa ku xeeran wuxuu soo sideen kara Soomaa wixii uu sheegshay wuxuu ku yiri niyo waxa uu egtahay min baras qabi jiraan waa arki jiraan waa taani markaasuu ma akimaani ana waxa weeye xoolaha kan awoway baa lahaan jiray ka dhaxalnay
xoolo badan bay ahaayeen ma garanaysaa intaas ay u soo aaday wuxuu ilaahay nima ridin subxaana wa tacaala waa labana weligeena uguma dhicin baraskaa sheegaysa markaasu wuxuu ku yidhi haddaa been sheegaysa ilaahay subxana wa tacaala saahayda kuu celiyo wuxuu u yimi ninkii noolka ahaa markaasu wuxuu ku yidhi niyahow wadadaa wuxuuna neef ariyo wadada kusii maro isii markaasuu ninkii noolka ahaan jiray oo markaa dambe xoolo badan ariya haysta wuxuu ku yidhi niyahow ilaahay subxana wa tacaala baa ii nimceeyey ama faqiira ilaahay subxana wa tacaala ii nimceeyey inta ariga dhex geshi wixii kaa anfac kala bax wixii kaa anfac wadada kusii mar buu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi anigu wuxuu yidhi waxba kaagama baahan xamana kaama rabee waa laydin imtixaamay saddex nin baa haydano imtixaan baa laydinka qaadayo faqad radiya allahu canka buu yidhi ilaahay baa kaa raali noqda adiga waa ilahay baa ku shukriyey subxana wa tacaala laakiin labadii kalena ilaahay baa caraday qisadaa waxaa loo soo qaatay nimankaasu markay dhibaatada ku jirin waxay ahayd niman saabiriina oo samraya laakiin markii khayrka lagu sii daayey dadku bini'aadanka markay wax helaan intooda way ku qooqaan markaas ilaahi subxana wa tacaala wuxuu yidhi wa qaliilun min cibaadiya shakuur in yar oo ka mida addoommada alle subxaana wa tacaala baa shukrida oo nimcada la siiyey taqaano oo fahanta ku shukrida in yar ilahi yidhi subxaana wa tacaala waad dareemi kartaa alle wuxuu yidhi waa qaliilun wax yar ilaahay subxana wa tacaala inuu kaa dhigo kuwa shaakiriinta ilaahay subxana wa tacaala ku shukriya ilaahay subxana wa tacaala wey